عبد الرحمن waa mahadsan tahay ku soo dhawow BBC-da bal ugu horeyn waxaad nooga warantaa maanta wixii maxkamadda ka dhacay horta maanta wixii maxkamadda ka dhacay oo waxaan iska garanay oo iska hubay inay sida ay u dhacso laano wax dhibaataan gaarsiistay meelan jirin maanta waa guul way boqolkiiba boqol arrimihii oo dhan waa ku guuleystay alxamdulillah eedaha lagu haystay hadaad wax nooga sheegto wallahi aad bay u fara badan yihiin waxa weeye 6 dowladood baanu yaanu maxkamaduhu ay ka socdeen min Hong Kong, Singapore, Dubai, Paris, Djibouti iyo London iyo arrimuhu ka socdeen dhowr maxkamadood oo waliba waxa kaaga daranay waxay ku socdeen xeerka Djibouti oo waliba tii Faransiiska lagu daray oo ku saabsan criminal court iyo commercial court iyo civil wax la yiraahdo oo ku saabsan yani wixii shaqaalaha dawladda u shaqeeyo iyo oo waliba lagu sameeyay maxkamadda Ingiriiska kolkaana waxa soo dhanaadana af Ingiriisi lagu soo tarjumo oo expertise loo dalbado waxa weey arintani waa arin aad iyo aad weligeed taariikhda Ingiriiska may soo marin qadiyad sidan oo kala ah yani maxkamad qof yani dawladdan oo la timaado 24 claims mise qodob oo wax walba ku jiray yani waxay ka iloobeen meelan jirin waxay ku saabsaneed yani waxlayaal fara badan waxa soo dhanay musuq maasuq iyo qof yani dalkiisa khaayinay oo yani ka faa'iideystay oo arintaas oo dhan yani gabi way ku khasaareen maanta guul weey kolka guushana waxaan leeyahay tayda maaha waxaan doonaynaa si fiican u hambaleeyo xaaskayga iyo caruurtayda iyo family dadkii la soo daalay 4 sanadood aanu arrimahan aanu ku jirnay si adkaaday anigana ay siiyay courage riligelin yani inaan adkaysto oo yani aan si fiican aan u wado madaxii dekadaha iyo aaga xorta ah ee Djibouti ayaa ahayd in muddo ah laakiin dacwadan lagu soo oogay waxay la xiriirtaa in musuqmaasuqaad ku lug lahayd si qaldan aad u isticmaashay dakhligii ama lacagihii qaranka markaad eegto marka eedaas lagu soo jeediyay dad badan waxay isweydiin karaan Soomaaliya hadii boore intaas oo milyan 100 milyan uu leeyahay sidee shakhsiyan u hanan kara waxa soo lacag horta waxa weey anigu ma maamuli jirin sidana moodisiin inaan anigu yani aan dekada maamuli jirin maamulka waxa weey yani ada investment asameeyay imika tan oo kale ma waxaan ku siinayaa example waxa jira shirkado 10 milyan mise 15 milyan oo dollar ah gelisay 15 sanadood hortay oo maanta qiimahoodu sare u kacay oo noqon kara meelaha 70 milyan qofka businessku waxa weey maaha baayac mushtariga caadiga wax la iibinayay dib inta loo soo iibsado la iibinayay investment kan anigu sameeyo waxa weey waa long term waa infrastructure investment waxa weey yani Djibouti uma hina adduunyada oo dhan baanu ka shaqeynaa inta in ka badanna waan heli karnaa hadii uu qofku yani si daacad u shaqeysanayo maskax leeyahay maxaad isleedahay marka hadaad qiyaasto adiga hantida laga xiriiray waxa lagu qiyaasayay 137 milyan oo dollar laakiin guud ahaan hantidaada inta lagu qiyaasi karaa mid kale wallahi ma kamaan xisaabin waxaan ka walwalayay ay igu xayireen 4 sanadood ay waqtiga iga lumiyeen laakiin kulleeba rajo badan baan leenahay inaan imika kalsoonidii dadkii aan la shaqeynayay iyo bananka London iyo adduunyada ku xiran oo dhan arintan maxkamadda waxay haameen doontaa wax fara badan wax badan ay awal ay ka yar cabsoonayeen iyo imika dib u meeri doontaa iyo magac